deegaan oo shabaab joogo iyo deegaan oo macusley joogto meel wax isku maqaad karto annakana macusley aan nahay qashinkan meesha la soo dhoobo aragteen waxa keenay hay'adda la yiraahdo wardo hay'adda la yiraahdo wardo waa hay'ad ka shaqeysa degmada Jallaqsi annagana waxaan nahay dadkii ku noolay tuulada afcad oo hoos taga degmada Jallaqsi hay'adda la yiraahdo wardo waxaan ognahay inay tahay damal caafimaad na ay hoos tagto hay'adda la yiraahdo saaf ay hoos tagto annaga hay'adda la yiraahdo wardo dadkii dadweynaha ku noolay afcad waa ajartay waa qaladay waxaan u sheegaynaa dadweynaha in hay'adda wardo ay dadkii afcad ay qaladay ay hoos u gadatay ay laaluush la baxday ay habeen madow ay daawo ay meel ugu soo xareeday ay dad shacab u soo dhiibtay waliba oo waligood hay'adu shaqeey annaga hay'adda waxaan u sheegaynaa wardo hay'adda la yiraahdo inaynan afcad aynan imaa karin ayna wax noo keeni karin bulshadu walaxina ogeynaa aynan noo keeni karin seefna waxaan ka codsanaynaa inayna wardo wax loogu soo dhiibi karin aynan wax wardo ka socda loo keeni karin wixii ay loogu tala gashay ay meeshaas ay kula dheeshay oo dad haddii ilaahay kuu rooyo shacabuhu ay gateen ay lacag ay ku qaateen oo habeen madow dhalinyartaas ay ka soo bixday garaash ayadoo meesha garaash la geliyey garaashay baabuurta ku xaraysan yihiin oo nin uu iska leeyahay 8 saaco habeenimo lagu soo xiray oo meeshaas ay dhalinyarta ka soo bixiyeen meeshaas la keenay in annagu qalad ma rabno wax dulmi ma hayno hadda ka hor waxa dhacday afcad hay'ado wax ka shaqeey jireen dhowr hay'adood ka shaqeeyday siibad laba hay'adood hadda annagu aan ognahay inta badan sida badan ka shaqeysay wilina qalalaasa kama dhicin lagama hadlin xabad lagama sheegin si nadiif ah umada bulshada afcad degan ugu shaqeeyeen oo islaamka bulshada afcad degan si nadiif ah ugu shaqeeyeen si nadiif ah ku kala tageen wili xitaa tacaamul iyo wax badan la leeyahay waa la shaqeeyaan waana ka shaqeeydaa afcad hay'adaha laba hay'adood afcad ka shaqeysa ay mido ay tahay RC ay tahay ay miduna ay tahay WFB ay tahay si nabad ah uga shaqeeyaan laakiin hay'adda wardo la yiraahdo oo damal caafimaad ay soo dirsatay nimanka la yiraahdo ay soo dirsatay hay'adda la yiraahdo saaf ay soo dirsatay afcad kama shaqeey karaan xitaa jidka Jallaqsi loo maro oo afcad uu marahay xitaa soo mari karaan saasa u sheegaynaa bulshadeynta saasa u sheegaynaa walaalayaal beledkan kala hadlaa waa afcad insha Allah taala nimankan 8 saac habeenimo ayaa soo qabanay beledka waa la waardiyaa waxa laga waardiyaa nimanka dhagarayaasha ah oo shabaab ciidanku ma hurdiyo 24 saac waa korkooda ka bariyo ayagoo sabta digtoono ugu jiro kartoomo kaano meel ku jiro ay arkeen way soo raadiyeen waxa keentay waxa ku qoran karto wada fiirna wardo hay'adda la yiraahdo damal caafimaad maga waxa gudoomiyaha ogeyn beel dhaqameedka ogeyn ciidanku ogeyn bulshadu ayna ogeyn wixii beelka ku soo galo saamba u leh waxay la noqotay in shabaab loo wado maadaama 8 saac habeenimo la keenay odayaasha ayna ogeyn guddigii oo ogeyn sagaalkiin islaakii dhanba oo ogeyn balkii laga ogeyn wixii 8 saac habeenimo keenay waxa uu qaadanay in shabaab loo gudbin rabay kii baabuurku ku keenay iyo kii loo dhiibayba insha Allah taala gacan adagna ku qaban doonaa wallahi marka hore waxa ku maadsan ciidamada joogo deegaanka afcad ee hoos taga degmada Jallaqsi soo qabtay waxyaabaha inaba caadi aan ahayn oo meel loo wada la garalayaa marka waxyaabaha daasii daba galnay iyo astaamaha ay wataan waxay noola ekaadeen waxyaabo dhagar qaba intaasna waxa ku maadsan bulshada joogto deegaanka afcad iyo macawsleyda joogto deegaanka afcad maalin ha noqoto habeensi ha noqoto hadii la isku daro waa 24 saac intaasna waa adeegan waa goobtan ay ku jiraan wax waliba waa ka war helaan xaaladaas qaabkii ku soo gashay ayadoo la moogyahay ku soo gashay waxa haday maalin isniina oo mashquul badan oo shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu ka soo galaa xoogga dalka Soomaaliyeed oo kamid yahay meel kasta uu ka soo galaa wardi sidaas oo saaid uma saarnayn sida badan waa lala wada socday laakiin gaari shacab ayaa lagu keenay ayadoo la moogyahay waxa la geliyay meel aan ugu shakiinayna qawaariita caadista dhiigga muslimiinta haddana waxa ku soo dhinay gacanta marka wax waliba waxa arki doono federaalka Soomaaliya ee jooga meel kasto asigana wax laalo wax ka dhihi doono marka waa ku maadsiyihiin waxaan ugu mahad celinayaa shacabkaas iyo macawsliidaas meeshaas joogto alxamdulillah alaabtaas meesha taalo waa alaab annagoo moog la soo geli xaafada kamid nagala nakaayo hadda faashal aan waxna loogu sheegin
hase ahaatee annaga xilladii waxbaanu aragnay inay qalad tahay alaabtii waa soo qabanay waxaan keennay ciidan ka mid ah oo ilaaliyaha ka mid ah aan gacanta u soo gelinay alaabtii waatanaa meesha taal ilaa iyo hadda macquul waa nala naqan leedahay ilaan waxaan dhowrinayna sharafta meel la wada xitaa ma naqaano marka hay-adda waddo hadda sheegayna inay hadda tahay malaynaa damal iyo maxay ahayd baashi kale wardo annagana hadda ugu raali ma ahayna ayaga uun si qarsooni ah meesha ku soo geliya haddana ugu raali ma nihi haddana ugu raali ma nihi mar kalena ugu raali ma nihi intaas joognaa deegaanka afcad la yiraahdo oo degmada Jallaqsi hoos tago meeshaan laba hay'adooda timiday si wada sax ay ku yimideen bulshada iyo guddiga iyo gudoomiyay ka soo dhaceen hay'adda warda la yiraahdo oo damal caafimaad wado si qarsooniya buugiidi waa kana si qarsooniya caw madow ku soo gashay dadanan hoobay afcad ka tirsanayn shaqaalihiidii xagga lagu soo farasamaystay oonan afcad aan u dhalan gurina aan ku lahayn aan ka tirsanayn garaasha la galiyay gacanta inay ku soo dhacday waa ka soo bixinay mana doonayno dibda bulshada afcadna ma isku raacsano waxay isku raacsan tahay ay mutaafaqo ku taana shaqay doona insha Allah mana si sharci darraayna ku timiday waanan ikirsanahay waana laga noqonaysaa walaalayaalaha oo mahadsan yihiin soo qabtay daawadan oo kuna soo qabtay falka qaldan ayay ku soo gashay duulada afcad ayuu hoos tagtay degmada Jallaqsi in daawadan waa si la sheegay magaceeda in waa wardo iyo damac caafimaad sidii loo yaqaano in waxa degmada afcadna waxay ku soo gashay duulada afcadna waxay ku soo gashay si qalada ayuu raali looga hayn ay ummadda bulshada joogta in raali ugu hayn ay ciidamada macuusleen in raali ugu hayn bulshada balka ku nool in midbakooda aan raali ku hayn ayay si qalad ay u soo gashay in habeen madow 8 saac habeen ay soo gashay 8 saac habeen ay socdo 8 saac habeen dhagariyaasha ku ognaa socod maana kuma ogi ummad muslimiin oo kale tood oo ilaahay ka cabsanayda in 8 saac habeen ay socoto kuma ogi waxaan ku ognahay nimankii dhagariya qabiyaasha ahay ayuu la dagaalsanaynay ayuu iska ilaalinaynay ayuu webigaas ka qorxsan jooga anakan afka bari ka joognay kuna afka qorxsan ka joogeen ayuu cawo kasta aan u taagnayn ayaa 8 saac habeen ku socod ku ognahay maahna qof ibni aadan oo in ilaahay ka cabsanaysa kuma ogi 8 saac 9 saac 8 saac habeen ay socoto marka daawadaas waa soo qabanay in waxaana ku soo qabanay meelo laga shikinaay ayuu aan la gelin ayuu ciidamo ay mar walba ay difaac kor saarayeen oo difaaci oo shabaabka uu ka dagaali jiray ayuu ummadda islaamka uu ku laayay aan ka soo qabanay marka haduu ilaahay yiraahdo waana keenay waana maasintii ka tumata ka hadlaya deegaanka afcad hay'addu aan soo gaartay wardo dhamal caafimaad waxay hay'adday si qaldan ugu timid afcad deegaanka afcad 8 saac habeenimo waa daawi keentay daawadaas oo ku qoran inay deegaanka buurweyn oo qorxsan naga jiro deegaanka afcad isla leeyihiin mana isla laha karan deegaanka buurweyn shabaab joogo deegaanka afcadna waxa joogo macuusley marka calasaan deegaan uu shabaab joogo deegaan uu macuusley joogto meel wax isku qaadan karto annakana macuusley aan nahay deegaanka afcad aan joognaa daawo sabab hadii iska dhaafay calasaan duuntii darnay webiga lagu gudbay waxaan lagu gudbaa dad cusub laga shaqeeyo ku gudbaan walba kamdaari uu leeyahay uu qaas u yahay daawadaas ayadoo webiga qaarna lagu gudbin rabo qaarna uu garaasha ku jirto aan soo qabanay xasaasaan nooga baxday badan waxaan daawada warda baasha la yiraahdo ayadoo la ogoleen marnaba soo mugli karto marnaba mari karto ayadoo gudoomiyaha iyo shacabka iyo macala gudiga uu ka hadlayn soo mugli karto baabuurkii soo qaadana haduu shacab leeyahay haga joogan dheelahay baabuur ciidan haduu yahay inta macuusley ku nahay afad waa iska cili karnaa waxa baabuur ciidan soo qaado baabuur shacabna haduu leeyahay waxa leehayna ninka iska lahan qorofka ka hor gubina sabana ku dhalaalayna insha Allah taala waxaan joognaa buqcada ka tirsan gobolka Hiiraan gudaheeda ku taalo leeyahay afcad waxay loo keeneen dawo meel ku jeeda aan helin oo baahan leeyahay damal caafimaad ay keentay anu kuma ka sayno in suntahay ma naqaan in daawo ka taana ma ka sayno mas'uuliyadda xawaalo wadanka joogta oo maadaama dawladda hoos tagtaanba mas'uul wadanka joogta waxa ka codsayna waxa laga soo gaaro maadaama dhimasho ka imaan karto waa la isku dili karaa wax walba ka dhici kara waxa ninkii keenay islaamku moogya in sun yihiin ciina kale kala helin anu ma ka saani warqadahana waxa ku qoran hadduu ku dina marka ka sheekinayna dad kamid ah ay ku qoran yihiin faylkooda dadka ka shaqeyn lahaa in ummadda lagu laayaa lagu talagalay ummad islaamka gacanta ku soo qabatay hadduu ku dina ummadda islaamka wadanka dadka mas'uuliyadda waxaan ka codsanaynaa in laga soo gaaraan inta ka soo gaabina assalaamu calaykum